nuur waxaa lagu haystaa inaad dishay cumar xasan macalin oo si bareera u dishay waxaa ku bannaan 3 jawaab midood nuur dembigaas waa galay ma gelin doodan ka qaba ha ku bannaan nuur daahir geedi badiidana eedda ah dilka marxuum cumar xasan macalin dilkaasi oo ka dhacay degmada xamar jajab 16 juun sanadkan marxuumka ayaa ahaa waratada ku iibisa alaabta fudud agagaarka ceelgaabta gaar ahaan waaxda horseed ee degmada xamar jajab goobjoogayaal shacab ah ciidankii qabtay xilligii uu baxsadka ahaa eedaysanaha iyo ciidan uu shaqo wadaag la ahaa nuur daahir geedi ayay maxkamadda dhigaysatay dhammaan markhaatiyaasha waxa ay ka sheegeen fadhiga maxkamadda in marxuumka uu u geeriyooday muran ka dhashay 2,000 shilin Soomaali ah oo ka mid ah 6,000 uu eedaysanaha sigaar kaga iibsanayay marxuum cumar xasan macalin oo ahaa 70 jir nolosha ka maareynayay iibinta bagaashka fudud dhinacyada dacwadda ayaa si siman su'aalo u weydiiyey dhammaan markhaatiyaashii maxkamadda la hor keenay waa kambaarihii kiiska xidigla cabdulaahi cabdi nuur ilkacsi oo ka jawaabaya natiijada baarista booliiska waxay yiraahdeen ninkii qorigu soo qaatay odaygu wuxuu yiraahday qori soo qaatay qorigiisa asaaska la maxaa naga dhaxay waa u yimid asagoon la hadlin ayuu baaki sigaaru ka qaatay odayga markaas uu baakada sigaarka ii dhig kelmad ugu horeysa uu saas yiri hal xabo wuxuu ku dhuftay darbiga kore markii labaad uu war sigaarkayga xoog ma ku qaadanaysi tii labaad halkaas uu dhuftay maskaxdayna ka baxay isla eedaysanaha waa soo orday mooto meesha maraysa oo bajaaj ayuu islaan iyo gabadheedoo saaran uu ka tuuray qoriga intuu ku qabtay waa raacay maxkamadda ayaa la wareegtay qorigii dilka uu ku geystay nuur daahir geedi warqadda caddeynta dhimashada iyo qoraalka qiraalka eedaysanaha xeelaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida jenaraal cabdulaahi buule kemey ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo eedaysana nuur daahir geedi ciqaab u dhigantay inta uu geystay caddaymihii kale waxaa kaloo hor keennay baariikiiska oo ka warbixiyey goobtii crime scene management wixii uu kala soo kulmay goobtii dembigu ka dhacay sidaas darteed maadaama ay caddaatay in eedaysanuhu si bareer ah u diilay marxuumka isagoo nin buliisa ah oo la rabay amniga inuu ilaaliyo isla markaana nin miskiin ah oo gadanaya gaari gacan lacagtiisii darteed inuu ku dilo waa wax xaaraam ah qofku dembiile waa noqon karaa laakiin kuwa qabtay booliis baan maxkamadda waxaan weydiisanayaa in ciqaabta u qalanta lagu xukumo oo haddii toogashaa qareennada u doodaya eedaysanaha ayaa maxkamadda ka codsaday in lagu xukumo magta marxuumka maadaama uu eedaysanaha xaalad gaar ah ku jiray dilkana uu ka dhacay isla goobtaasi xamar jajab eedaysanahana uu yahay nin geystay laakiin dilkaas uusan u geysanin si kas ah marka maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in loo fiiriyo qodobka 4aad xeerka ciqaabta xarifkiisa ga oo dawfaha dinta fuudeeyo sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa maxkamadda in lagu xukumo nuur daahir geedi diyadii marxuum cumar xasan macalin fadhiga waxaa goobjoog u ahaa ciidamo laga soo xulay baraha lagu hubiyo dadweynaha gaadiidka iyo saldhigyada booliiska gobolka banaadir kuwaasoo uu xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ugu talagalay inay u noqoto tusaale ay kaga waantoobi karaan ficilada noocaas ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuuta ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda dhegaysiga eedda lidka ku ah eedaysane nuur daahir geedi intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho